gurmadka abaaraha gobolka togdheer ayaa maanta deeq lacaga kala wareegay hablo muxsiniina oo ka soo diray wadamada Ingiriiska iyo Faransiiska waxaana deeqdaasi ay u soo wakiisheen hablahaasi muxsiniintaasi xasan qaaliya deeqa weydaar oo ka wakiilaha deeqdani waxaana geesiisa uga mahad celiyay deeqdani hablaha muxsiniinta ee ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu saameeyeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer ahna gudoomiyaha gudida abaaraha gobolka maxamed diiriye xayd sagoo ugu baaqay umada muxsiniinta ee khayrka jecel meel kasta ay joogaan inay ka soo qayb qaataan taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka togdheer waxaan maanta ku wareejinayaa gudida abaaraha ee gobolka togdheer burco lacag dhan $150 oo soo diray hablo muxsiniina siraad saleebaan guureed iyo ruqiya yalaxoog marka lacagtaas waa $150 waxay u soo direen dadka masaakiinta ah ee abaaraysan bay u soo direen ee abaaruhu haystaan aniguna maanta waxaan ku wareejinayaa guddiga abaaraha iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer anigoo ah xasan qaal kana tirsan howlwadeenada xawaalada iftiin waxaan halkan ka wareejinayaa lacag laga soo diray waddanka Faransiiska magaalada Laakoosh oo ay soo direen hablo muxsiniina oo u soo tabarucay abaaraha ugu soo talagalay hablaha magacyadoodu ay kala yihiin Khadra Mahdi Salaad iyo Aamina Ismaaciil aw aadan lacagtaas oo dhan 525 waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha gudida abaaraha gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha lacagtu waa $525 weyn nahay gudida abaaraha ama gudida gurmadka abaaraha ee gobolka togdheer waxaan halkan kula wareegnay lacag ay soo direen hablo muxsiniina oo aad iyo aad ugu ducaynayno oo ah siraad saleebaan iyo ruqiya yalaxow oo xaafad ka tirsan London ka soo diray waxaan leenahay hablaha ilaahay halkii ka soo saartay wax qayb qabaale ay ugu bedelo xasan qaal waxaanu kala wareegnay lacag dhan 525 oo ay soo direen hablaha iyo muxsiniina Khadra Mahdi Salaad iyo Aamina Ismaaciil aw aadan oo ay ka soo direen dalka Faransiiska kula soo hagaajiyeen xawaalada iftiin ee xasan masuulka ka yahay hablahana waxaan ugu ducaynaynaa in ay meesha ka soo saareen wax khayr qaba ugu bedelo ayaanu ka codsanaynaa lacagta imika inoo keenay ee 525 kaaso waxa laga yaabaa kumanaan qof ama xoolaha inay cabaan intaas oo calooshooda wax ku dhacaan oo idin ducaynaysa maanta wixii halka dad taagnaa ee ka dareeray wada biyuun bay raadinayeen inta waa la kala tagay maanta ara jiilaalka oo yahay waxaanu ka codsanaynaa ummadda islaamka cid kasta ay tahay in gurmad degdeg ah loo soo sameeyo barwaaqo aadan maxmed magaalada burco.